بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel aad joogtaan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku ammaanyeelo cidii dhibka Allah ka qaado cidii dan la Allah uu oofiyo inta baahan Allah deeqo inta bugta Allah bogsiyo intii dhimatay Allah u naxariisto waalidiinteena Allah u naxariisto annagana Allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa saddex qodob. xaalufintii ugu ba'nayd oo laga wada Muqdisho iyo madaxweynihii meel daran taagan kelmad baan ka oranayaa. fadeexadii kaga dhacday ciidamada qaranka doolow iyo hogaamiyaashooda iyo madaxdooda iyadana waxaan ka oranayaa kelmad. qodobka saddexaad, dadka gadal loo diray indho koray horta waa kuma taariikhdiisii baan wax yar ka ifinayaa, iyadana waa qodobkayga saddexaad. qodobka koowaad, xaalufintii ugu ba'nayd ayaa Muqdisho ka socota. dadkii waxaa lagu leeyahay magaalada Muqdisho meesha martidba waxa ka hor imaanaysa hooyo ilmo iyo boorsooyin ama joodar dhabar ku sidata. waxaa buuq iyo barakac ka dhacay isbitaal Banaadir xaruntii hooyooyinka iyo meeshii nersisku ay degi jireen. waxaa la barakiciyey oo la gadanayaa tarabuunkii qayb ka mida bangigii dhiigga. dhowaan waa tii jaamacaddii caafimaadka la gatay, haddana bangigii dhiigga ayaa loo soo dhigtay iyo isbitaal Banaadir. yacni waxa weeye waa mooraduug. suuqii buulaxuubay isagana waa la feentay. masjid iyo dugsi la burburiyey oo culimo ay taagantao qaylinayaan oo ay leeyihiin war laa ilaaha ila allah, war masaajid inta la dumiyo yaan dad loo cabirin, ay dhici karto inaysanba tukan na waad aragteen. xasanow intaa ma wadaa gashay adigii masaajidka ka lahaa wado meelay marto baan duminahay. bangiga dhiigga iyo isbitaal Banaadir dowladdii dhexe ee Soomaaliya ayaa u dhistay dadkan ugu tala gashay. tarabuunku meeshii sharafta ummadda lagu muujin jiray bay ahayd. haddii wax laga dhisanayo wax caama oo dan caama in laga dhiso dowladda loo dhiso bay ahayd. yani waxyaabaha suuq dadku ay ku ganacsanayaan inta laga burburiyo la yiri waxa la idinka dhigayaa sar in dushooda lagu kala ganacsanayo, hawada lagu kala iibsanayo. fadeexadaas ceebteedii isagay ka muuqatay. Kenya u socday, Axmed Madoobe ila soo maroojiya buu ugu socday. maxaa ku dhacay? wuxuu la kulmay mayd nin gaalo dhintay, Raila Odinga. waxaa la yiri u tag, ma yaqaan maya. marba haddii ajnabi wax ka dalbado jilbuu isla dhacaya, horuu ka ordaya. isagoo la wadaa la geeyey, madaxuu saa uga dhugdhugsiinaya, aad buu isu celiyey. laakiin waxaan soo xasuustay Sheekh Xasan Daahir Aweys. waxaan soo xasuustay wuxuu yiri walaalow madaxaana aad ka dhugdhugsiinaysid. awal waaba rukuuci jiray. xoogaha kelmaddii Sheekh Xasan iyo dadkii mucaaradka ahaa ee in badan kala hadlay, dadka baraha bulshada aad ugala hadlay arrintaas ku fadeexeeyey ayuu is adkeeyey. laakiin madaxii dhaqaaq waa isrogay. su-aal baan ku weydiinayaa xasanow, nin diinta wax ka garanayaa tahay. nebi maxamed sal alla ly slam markuu ku tukaday cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool wiilkiisii ka codsaday, isagoo qalbiga u dhaqaalaynaya qalbiga wiilka saxaabiga cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool iyo qaraabada ayuu ku tukaday. waxaa lagu yiri walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabri inahum kafaruu billahi warasuulih wamaatuu hum faasiquun ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم. إلهي سبحانه وتعالى وحاس أو ماجيس وحو يسود بدقي نين يدد توحيد كافك كجدا واقع شنط الصلاة النبي محمد لا تكون تري صلى الله عليه وسلم لا سومي تري لا آدي تري جهاد كي يدقالك من كاسا ليرها كنت كوليس وأنا كافر بالي. bal qofka gaalnimadiisu caddahay ka war maxaa ku dultaagay qabrigiisa iyo meydkiisa maxaa ka doontay? ilaahay baa ku fadeexaynaya. maxaa yeelay ummaddii baad laasatay oo baabi'isay oo feenatay. sharaftii Soomaaliyeedna waad baabi'isay, waxba ugama aadan tegin. kursigiina waad ceebaysay. marka waxaad moodaa inuu leeyahay waxba dambe oo qabya ah ka tegi maayo. kelmadda intaasa ka oranaya. qodobka labaad,
fadeexad aad u weyn ayaa ku dhacday ciidanka qaranka Soomaaliyeed kadib markii taliyihii ciidanka lugta Khalid uu galay wardo iyo khiyaano ma garanaysa Xasan Sheikh uu doonayo inuu ku qajaroofto Axmed Madoobe dad baa waxay u qabaan inuu Xasan rabo inuu maamul ka dhiso Gedo kalmadan ka oran doona laakiin waxay ahayd abiib uu tagay wixii qadiyadii doolow ka dhacday baan rabaa in laga wada xaalo waa diyaar baa la yiri saraakiishu ka wada hadleen wuxuu soo diray Khalid isagoo aan waxba iska soo hormarin ayuu yiri waa imaanaya diyaarad soo qaatay meesha waxaa jooga ciidan ka amar qaata Axmed Madoobe waxaa xukuman in la yiraahdo lafay technico iyo ciidan buu wuxuu dhigay airportkii markay diyaaradii soo dul martayna rasaas bay ku rideen kadib waxa uu ku khasbanaaday Khalid inuu ka dago dhanka Ethiopia wuxuu ku dagay Ethiopia dalkiisii baa laga cayriyay taliyihii ciidanka qaranka baa dalkiisii loo diiday inuu ka dago oo wuxuu ka dagay dal shisheeye ama dhul kale oo aan hoos joogin dawladda Soomaaliya dhul shisheeye maaha oo dowladda kalena inaga leh waa dhulkii Soomaaliyeed laakiin hadda hoos jooga Ethiopia waxa hotel la dejiyay qayb kamid ah wafdigiisii isaga la socday Maxamuud Sayid hotel halka ka degan aan idin sheego Ethiopia iyo Kenya labaduba Axmed Madoobe la jiraan wuxuu yiri waxaan u imaanayaa dhowr qodob gurigii dagaalku ka dhacay inaan aragnaa rabnaa waxaan rabnaa oo kale Soomaaliya doolow inay anaga Soomaaliya ku soo wareegto waxaan rabnaa inaan aragno oo soo fiirino meesha la yiraahdo ciidan inaan ka soo dejino doolow xoogaa ah oo ciidankii laga tarxiilay oo nisa ahaa oo ay Etoobiyaanku diyaaradda saareen inaan dib u soo celino ciidan ka imaanaya balad xaawana oo u yimaado ciidanka kaxeeyo waxa la rabay Cabdirashiid Janan iyo ciidankiisu intay yimaadaan inay meesha xoog ku qabsadaan doolow marka waa ka madax bannaan tahay waa sheegi doonaa waa ka hadli doonaa arintaas markii ay dhacday lafay wuxuu yiri ninka Khalid waa dambiile haddii aad noo soo dhiibaysaan markuu Ethiopia tagay baa wada hadal loo sameeyay noo soo dhiibaysaan diyaar baan u nahay Etoobiyaanku waxay yiraahdeen Jubbaland iyo federaalka ay sayay anagu kuma dhex jirnay idinku wada xaala halka ceeb baa kaga dhacday Xasan iyo fadeexad iyo tii kaga dhacday Raas Kaamboni mid lamida taliyihii ciidanku si uu u fadhiyay Ethiopia inuu xamar ku noqdo oo la yiraahdo Soomaaliya ma soo degi kartid waa nasiib darro waa talo xumo waa siyaasad xumo waa qariska tuurnimo waa waali nooc waalida kamid ah oo Xasan maskaxdiisa ku jira taliyihii ciidanka Soomaaliya in loo diido bal aan dib ugu laabto qodobkayga saddexaad oo ah Gedo Xasan horta muxuu ka rabaa mase laga akhriyi karaa dadka uu soo diray Gedo aan horta kelmad ka yiraahdo reer Gedo Jubbaland bay ka tirsan yihiin degmooyinka ugu badanna waa degan yihiin xaq bay waxay u leeyihiin inay madaxweyne ka noqdaan 13 sano hal nin baa haysta xilligay ugu dhaweyd oo ay isaga bedeli lahaayeen ama waa dhimanaya Axmed ama xoog baa lagaga qaadaya ama isagaaba isdhiibi doono ogolaan doona xilligay ugu dhaweyd inay gobolka oo dhan qabsadaan in lagu qanciyo tuulaad qabsanaysaan oo magaalooyin yar yar baa laydin sameynaya dhexdoodana al-shabaab fadhiyo Xasan haddii uu Gedo dan ka leeyahay ciidamadii xoogaaga ahaa oo dowladda hore uga tagtay kama urursadeen 4 sano oo dhow markuu ka maqnaana hadeer ma soo baraarugeenoo Axmed Madoobe ku camcamiyo ku xumee keliya uma yimaadeen hadduu cid u soo dirayana indha koray iyo wax lamid ah uma soo direen indha koray horta waa kuma indha koray ninka la yiraahdo waxaan idinka sheekeynayaa horta taariikhdiisii nin dhalinyaro ah oo yar oo agoon ah waxa uu ku koray qoladii Abu Tayuur la oran jiray Abu Tayuur walaadadii taxaadka ahaa meeshaas Gedo inteeda badnayd ka talin jiray gaar ahaan balad xaawo ayuu kamid ahaa dhalinyaradii halkaa lagu koriyay bariiska iyo cambuulada ka cuni jiray because ma uusan haysan cid kafaalo qaada kutub loogu akhriyi jiray halkaa lagu tababaray kuwaasu kamid ahaa markii uu xoog yeeshay oo awood helay dhibaatooyinkii uu dadka u geystay baan wuxuun ka dulmaraya waxaa jira 4 qof oo 3 ay reerkiisa tahay Kamas Deerow
iyo gabar iyo ina faarax mire iyo gabar sanyar la yiraahdo saddexdaas iyo wiil macallin ahaa oo raxan weyn oo liisaana afartaas god baa lagu guray oo lagu xabaalay oo maydkoodii godkaas laga soo saaray ninkaas raxan weyn oo liisaanta ahaa waxaa u dhintay oo loo dilay nin reer axmeda oo reer dhuxul ah oo ay isaga sigaan baaba loo dilayba oo aan ahaan loogu dilay saddexda kale isagay la reer ahaayeen qodobkaasi waa dembiyada uu galay mid ka mid ah waxaa la wada xasuustaa nin harqaanla ah oo nin muslin ah oo wadaada oo ajuuraan ah oo doolow deganaa intuu baabuur dabada ugu xiray isagoo nool isagoo qaylinayo shahaadanayo tawxiidsanaya inay naftu ka dhacday reer doolow oo dhan ay daawanayeen musiibada hadda ka socota waxyaabaha ciqaabka ah oo ka imaanaya ninkaasu isagoo ashhadu an laa ilaaha illa allah baa gaari lagu jiiday oo nafta lagaga gooyay dhulka waxaa samaynayaa waa indhakorey magacyo dhowru leeyahay indhakorey cabdulla biroole waa la yidhahdaayo meeshaan biraa kaga jira accidenti uu galayoo baabuur la gadoomay indhakorey waa la yidhaahdaa magacyo badan buu leeyahay janan waa la yidhaahdaa waa haddana ku darsada abudayuur waa magacyadiisii uu lahaa mid ka mid ah meeshuu joogi jiraa la oran jiray oo kusoo koray waxaa ka mid a dhibaatooyinka uu geystay nabadoon baanje beledxa waa lagu dilay ina qadhow nin la yidhahdo ina qadhow oo ay baanje isku reer yihiin buu u diray markuu yidhi war dadka maxaa u laynaysaa oo dhibaatada ugu samaynaysaa oo dadkaa la aasay oo la xabaalay iyo isagana saasaa loo dilay afar nin wuxuu u dhiibay ethoobiya u dhiibay markaas wuxuu yidhi waa al-shabaab oo almost sanad ay ku xirnaayeen afartaa nin waxaa ka mid a nin la yidhaahdo taliyihii saldhigga waxaa la oran jiray faarax gaarane oo haddeer ka mid a dadka madaxda ah oo muqdisho ka shaqeeya ka mid a waxaa ka mid a nin la oran jiray saleebaan oo isna liisaan ahaa waxaa ka mid a nin dhalinyara oo isna majeerteena qofka afaraadna wuxuu ahaa nin la yidhahda geelqaad oo ugaadeena afartaa nin etoobiyaan buu u dhiibay wuxuu yidhi waa al-shabaab ilaahay subxaana wa tacaala mar dambaa uu la ogaaday inta la baaray qofkii addis ababa xabsiyadeeda galaa oo ku gala magaca al-shabaabna wuxuu ahaan jiray aakhire u daa qof dhimasho lagu xukumay buu ahaan jiray marka inuu diluu rabay nimankaa la laayo afarta ah ilaahay unbaa ka soo daayay sanad kadib wax ku dhow sanad bay maqnaayeen waxaa ka mid a dhibaatooyinkiisa afar nin oo hawraarsamo ah buu guri ku dumiyey oo ku gubay oo ku laayay waana sababta keentay haddeer ciidanka BB1 oo hawraarsamaha inaysan ogolayn inay ninkaas wax shaqo ahi dhex marto oo ay xabadda ugu haystaan oo ay ula dirirayaan ninka isaga ah meel alla meeshu tago qaraxyaa ka dhaca haddeer nin baa lagu dilay magaalada baledxaawe dhexdeeda intii uu joogay isagaa lagu eedeeya cali dheeraa ma ujeedaa meel alla meeshu tago waad ogeydeen doolow hadda ka hor inuu qarax ka dhacay markii la yiri ka bax oo laga saaray oo uu tegey baar dheere iyadana qarax baa ka dhacay al-shabaabku la shaqaystaa meel alla meeshuu tago wuxuu iyaga u isticmaalaya dadka ku laayaan ninkaas buu kuu soo diray xasan su-aal baan weydiinaya dowladdaadii hore waaran bay ka soo saartay ninkaas ah in lasoo xiro sida ina yustur oo kale waaranadu agtaada macno kama leh sharciguna agtaada kama shaqeeyo haddaa reegado wax rabtid inaa u qabatid wax indhakorey iyo dhaama ma weyde wax macno leh ma u weyde nimankan yaryarka ah oo siyaasiyiinta oo shimbir iyo ay ka mid yihiin canjeex iyo maalinba meel ka qadeeya wax aan ahayn oo dhaama ma u weyde maxayse tuulo ugu khasban yihiin iyo gobol si aad adigu u maamulatid ma doorashadaada unbaa ka dhex aragtaa wax hormaa uma haysid afartii buundo oo gobolkaas soomaaliya ku xiriyey waa go-eene maxaa ku darsatay maxaa geysay dowladdoodii baad ahayde maalin ma u tagtay maalin ma ka hadashay arrimahooda maalin wax ma u qabatay axmed madoobe cid rabtaa ma jirto laakiin adaa kasii fog oo kasii xun weliba waxbaa kuu dheero qabyaalad iyo waxbaa la socotaa nin weyn oo 70 jir tahay oo madaxweyne Soomaaliyeed noqday waxaan qabyaalad ahayn ma taqaanin waa dhaafi laadahay kursigaa waa ka kori laadahay khaanada waa ka bixi laadahay ma